أنا وزير والدستوري إن لا حساب تما هيدا دولة وأنا أيحكم تهاي أودها قلها وكيلة دولة بدلان حساب تنكنا وحكا صوب حكرا سحين توسين هي عقابة مدن وزير واحد شيكتي أقاسمها ورباهنتا دولة بدلان إن أنو ما أنت يدين للسعون سبب الله حريرة إن أنو ورباهنتا با أنو أقوم ولهين وكيمي بهذا وحبر الشدة أرنتاسي مدحوينها دولة بدلان أيا دقريتكم مقعابي وأنا أقاسمة جود واحد شيكتي إن warbaahinta dawladdu ay tahay wax ka tirsan wasaaradda warfaafinta haday wax tahay waxay ahayd madaxweynaha dawladda Puntland inuu soo magacaabo agaasimo waaxid isaga markaa laakiin agaasimo guud oo wax wasaarad kamida xukuumaya oo agaasimaha ka ah waa markii koowaad ay dhacayso dawladda Puntland haday aynkaas jirto saxna ma arintaasi arinta hadii aanaydan ku qanacsanayn ka wasaaradahan agaasimuhu mawjada warbaahinta ee lagu soo dhaxtuuray inaan aqoon u lahayn waxaad leedahay tala soo jeedin baad xaq u leedahay shaqo joojin baad xaq u leedahay hadaan shaqada ku filnayn kadibna madaxweynaha dawladda Puntland oo digreeto ku soo magacaabay inaad ka codsato in cid shaqada ku haboon la keeno mudan wasiir arinta serverka London yaal waxaan aad ugu faraxsanahay maanta wasiir ashkir وزير دولة وزارة ورفاهينتا أو إن لتشوجا إنه صاها أقاسمي ورباهينتا دولة بدلان مركز صاع أنا هنا أقاسمي ورفاهينتا مدحتوية ده وده شقين دون رنتي عنه أرمها كلاهين عاد وده شقين شرني أنا وزير بعدي عاد بوك ماسي أرتانا وأنا كم عاد نغيا أرنت السيفركو جوابت السؤال عاد كبحسي مدنا وزير صح معها أقاسم عشكر مركو أقاسمها وزيركو إن بدن با لتجابيي إن سيرفركا الله صرروا عاصمة الدولة بدلان إقرول وحنا قالوها عقبته لك والله كل ما وزيركو حل قاس أقاسمها نمانكي ما ضحك حفيز قاس وكودجي وكدجا ذيجي وديدي إن سيرفركا سورجيان أريما يدنا يجو قارة يجو مركا كدحيجي لكن حلقة sida uu wasiir maxal caydii sheegay mudanayaal serverku daarta uu yaalo waxa la yiraahdaa Crown House anu marar badan baan booqday aniga oo idaacado TV ku yaalo warar siinaya ama waraysi ay ka qaadayaan waa runtii sida wasiirku sheegay Universal TV mooyaane warbaahinta kale ee Soomaalidaba kulli Crown House ku yaaleen xilligaas nin Hindiya ayaa xukumay laakiin maanta halkay marayaan tiraba waxaan ogahay warbaahintii xilliga meesha deganeed Somali Channel kamid aha Home Cable kamid aha RTL oo kamid aha Puntland TV oo kamid aha Somaliland National TV oo kamid aha inay badiba serverkood soo qaateen waxaan ogahay SBC serverkiisu inuu yaalo Boosaaso oo gudaha Puntland laga maamulo waxaan ogahay Somali National TV serverkiisu inuu yaalo Muqdisho oo Muqdisho laga maamulo waxaan ogahay Home Cable serverkiisa in loo soo reey magaalada Hargeysa oo Hargeysa laga maamulo dadana wasiir cudurdaar ku filan maaha in la yiraahdo internet la'aan iyo koronto la'aan innagana ka dawlad ahaan Puntland ceeb ay nagu tahay waa in laga hawlgalaa serverku sidoo gacanta wasaaradda warfaafinta uu soo galaa tastaaweeye qodobka labaad ay ka hadleen mudanayaashu waa sinaanta warbaahinta dawladda Puntland ay u sinaanayaan hay'adaha dawladda iyo madaxda dawladda dadana wasiir waa waajibaad hay'adaha dawladda Puntland waa isku wada mid haday tahay fulinta haday tahay xeer dejinta oo baarlamaanka iyo haday tahay garsoorka warbaahintii dawladda Puntland adaa wasiirka warfaafinta oo u madaxa adaa laga rabaa inaad dhex u noqoto hay'adaha dawladda iyo madaxda dawladda sidii uu wararkooda iyo barnaamijyadoodu si siman ay warbaahinta dawladda ugu isticmaalaan iyo haday tahay ururada siyaasadda haday tahay xisbiyada oo hadhow dalku yeelan doona xisbiyada qaranka
adigaa laga rabaa inaad mas-uuliyadda xambaartid in si siman warbaahinta dowladda oo loo simaya loo isticmaalo haddii kale waxaa imanaysa kalsooni darro maanta adiga arka Puntland TV ma iman inkastoo dhalinyaro fiican runtii ay nala shaqeeyaan aniguna aan bahda warbaahinta muddo badan kusoo dhex jiray oo 17 sano ah saaxiibada ay wada yihiin runtii dhalinyarada nala shaqeysa aad baan u ammaanayaa runtii dhalinyaro fiican firfircoon shaqadooda ku filan annaguna aan gacan ka siino wixii khibrada ee aan dheerinahay weeye wax dhibaatay ma jiraan laakiin waxay ku habboon tahay mudane wasiir idinku ka wasaarad ahaan iyo digreetada madaxweynaha oo haddii aad u aragteen inaan sidii saxda ahayn inaad iska ka wada fadhiisataan oo arrintaa idinku qorshe u samaysaan dejisaan warbaahinta dowladuna ay noqoto warbaahin qof kasta oo madaxa hay'ad kasta oo dawliya iyo dadka shacabkaba ay ku kalsoonaan karaan qodobka kale meesha ku jira weeye madana wasiir waxaad sheegtay hay'adda akademiyadda ee Puntland ee dhaqanka iyo hiduhu inay tahay wax arrintaas wasiir waa ku cudur daaraya waa gaf sharci waaye hay'addu hadda xeer bay leedahay xeerna digreeta madaxweyne ayaa lagu burin karaa madaxweynuhu uu soo codsado baarlamaanka hay'adda la baabi'iyo sidaa lagu tirtiro haddaba hay'addii hadmo waa la baabi'iyey baarlamaankana baabi'iyey golaha loo hor keenay dabeedna wasaaradda isu bedeshay sidaa daraaddeed inaad idinkuna habraaca shaqada taana u soo martaan annaguna ka baarlamaan ahaan waxaanu idinla fududaynaynaa wax kasta oo arrimo sharciya oo aad u baahantihiin mudane wasiir maanta la xisaabtankii wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiisku intaas inuu ku dhan yahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa wixii ka soo baxa la xisaabtankana waa idin soo wadaagaynaa waa mahadsantihiin wasiir waana faasixantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu